السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اللي مثل انا حريست انت حنوس الى عافية وحبران وبرات الخير العسية ما انت رغب بيانت كويتون كديش كون كنا فرق وافر ديال كبيرن لواتن تتودي بشي لحاد الله يكون لواتن اللحدة لو قدر وإنا واحد إمارات كأوغلاتي إن في ساسس اللحدة إسرائيل أو حد قدود وده أمريكا كورد حادنا لبنان إسرائيل أو سي وده ولا حد الله ده وبحية سوء يرى خسارة أو ده قدر كود ففحسن إمارات كعربته أوغلاتي في سه لو جلايو مركا ودن كماد on arrival لحدة waxaa ka mid ah Indonesia, Kenya, South Africa, maalmood ku xiran ama fiisaha maanta khamiis ah wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta ayaa ku dhawaaqday in muwaadiniin lixda leh oo xubnaha qoyskooda la siinayo fiisaha lagu qaadanayo on arrival. dalalka arrintaas qosaysa ayaa waxaa ka mid ah Indonesia, Vietnam, Thailand, Kenya, Philippines, South Africa. hadda hay-adaha federaalka aqoonsiga ayaa sheegtay jinsiyada kastamka iyo nidaamka xuduudaha ee Imaaraadka ayaa sheegay in shuruudda ay tahay in codsiyada iyo xubnaha qoyskooda ay yihiin muwaadiniin lixdaas dal isla markaana ay haystaan degenaansho sax ah oo ka socdo mid ka mid ah dalalkaasi kor ku xusnay. fiisaha 14 maalmood waa la cusboonaysiin karaa. 4 maalmood ugu horeysa waa la cusboonaysiin karaa hal mar oo keliya inta lagu jiro joogitaanka fiisaha 60 maalmood lama cusboonaysiin karo. marka hore waxaa la cusboonaysiin kan laakiin 14 maalmood kan kale maxaa 60 maalmood lama cusboonaysiin karo waxaana la bixiyaa hal mar oo keliya kan 60 maalin halka bil hal mar lagu bixinayo hal mar bis lagu siinayo mana la cusboonaysiin karo. marka muddada fiisaha dhamaato qofka inuu ka baxo Imaaraadka marka inuu ka baxo waa marka haddii fiisaha dhamaato wax lagu cusboonaysiinayo ma jirto waa inuu ka baxa Imaaraadka. haddii uu sii joogo si sharci darro ah waxaa la ganaaxi doonaa $50 dirham maalintii qarashkiisa fiisaha. qarashka fiisaha 14 maalmood iyo 100 dirham. fiisaha 60 maalmood 250 dirham ayaa lagu ganaaxayaa. kii hore muxuu ahaa 50 kan 60 maalin waxaa weeye 250. fiisaha gaar ah hadduu aad tahay muwaadin Kenyaan ah oo haysta degenaansho rasmi ah oo Canada ah waxa aad ka mid noqon kartaa dadka u qalma fiisaha lagu qaato marka la soo dego. haddaad Kenyaan tahay oo Canadaan ah haysatid waxaa u qalantaa in arrival lagu siiyo markaad soo degtid haddii aad buuxisid shuruudaha la xiriira. waa haddaad shuruudaha la xiriira aad buuxisid. qodobka labaad Israa'iil oo sare u qaaday weerarada koonfurta Lubnaan inkastoo la kordhiyey wadahadallada u dhexeeya gudoomiye ku yahay Mareykanka uuna dhexaadinayo Lubnaan iyo Israa'iil. ciidamada Israa'iil ayaa khamiistii xaqiijiyey inay dileen 6 qof deegaanka Zawtar al-Sharqiya ee buurta al-Tahriib ee koonfurta Lubnaan iyagoo ku andacooday inay ahaayeen xubno ka tirsan
xisbullah oo khatar ku ahaa muwaadiniinta. Si kastaba ha ahaatee ma aysan soo bandhigin caddeymo muujinaya aqoonsiga dadka la dilay ama khatarta ay sheegeen. Dhanka kale, xisbullah ayaa cambaareeyey weerarkii isagoo ku tilmaamay xadgudub cad ka dhan ah heshiiska xabad joojinta. Xisbiga ayaa sheegay, xisbullah ayaa sheegay in ciidamada ay leeyihiin waa cambaareynayna. xisbullah waxay leeyihiin waxaas waa xadgudub ba, heshiiska aan la galnana ma qorayso. Israa'iil ayaa si ula kac ah u beegsadeen dariiq u marayay waddada Zawtar al-Sharqiya, taasoo sababtay dhimashada 2 qof. Waxaa kale oo sheegay in uu sii wado diiwaan gelinta xadgudubada Israa'iil. xisbullah wax walba ee dhaca Israa'iil ay samayso way qoraysaa wayna diiwaan gelinaysaa. Netanyahu kama bixi doono Lubnaan. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu amar siiyey ciidanka Israa'iil inay yeeshaan xorriyad buuxda oo ay ku fuliyaan howlgallada militari gudaha Lubnaan si looga hortago wax kasta oo ku tilmaamay khatar ka dhan ah Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil wuxuu dhahay xor baa tihiin, wax rabtaad Lubnaan ka samayn karteen, wuxuuna sii amar buuxu siiyey. Netanyahu wuxuu sidoo kale caddeeyey in Israa'iil aysan ka bixi doonin koonfurta Lubnaan, isagoo sheegay in ciidamada Israa'iil ay sii joogi doonaan halkaas intii ay u arkaan inay lagama maarmaan tahay. Wadahadallada oo la kordhiyey. Dhanka siyaasadeed, mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in wadaxaajoodyada u dhexeeya Israa'iil iyo Lubnaan ay weli socdaan, iyadoo Mareykanku fududeeyey kulamada labada dhinac. Mas-uulkan ayaa sheegay in wafdiyada Israa'iil iyo Lubnaan dib u bilaabi doonaan kulanka Jimcaha si loo sii wado dadaalada lagu doonayo in heshiis lagu gaaro. Warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale sheegtay in wadaxaajoodyada waxay leeyihiin wadahadalladu way socon doonaan. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in wadaxaajoodyada la kordhiyey. Washington keentay in kulamo kale sii socdaan. Weerarada ay Israa'iil sii wado, inkasta oo Mareykanku cadaadis saaraya Israa'iil si loo yareeyo xiisadda loona taageero wadaxaajoodyada ka socda Switzerland ee la xiriira Iiraan. Haddana Israa'iil waxay sii wadaa weerar ay ku sheegtay inay ku beegsanayso xisbullah, inkastoo xawaaraha weerarkaasi hoos u dhacay tan iyo 2 Maarso. Weerarada Israa'iil oo Lubnaan ayaa sababay barakac in ka badan 1 milyan oo qof, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Lubnaan. Israa'iil ayaa sidoo kale weli haysata ka tirsan koonfurta dhulal ka tirsan. Waxay haysta Israa'iil dhul ka tirsan koonfurta Lubnaan, iyadoo dhulkaasi ugu dambeyn ay gaareen in ka badan 10 kilomitir. Dhulkaas waxay usii galeenba 10 kilomitir ay gudaha usii galeen dhulka Lubnaan, taas oo horumarka ugu weynaa tan iyo markii ay ka baxday koonfurta Lubnaan sanadkii 2000.
labada kun ay ka baxday haddana weerar kale ee kusoo qaaday 2024 ee 10 kilomitir oo gudaha usii gashay marka waxaan walaalayaal labada kun in la soo wadaago ay kusoo kordho qodobadeena wayna marka insha Allah hala taageero janalku cusub yahay war xaqiiqan soo gudbiya marka way salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jimca kariim